أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير جزائه باب صلاة الخوف. هذا متكان باب صلاة الخوف باب صلاة الخائف وفك بقى هي صلاة سباب كيدوي روح عبسنا يا صلاة دي سي باركان لك الله يا والنبي عليه الصلاة والسلام كيف ينكو كذي أيوك الله يا صلاة ملك صلاة الخوف كاللي يرادو وحنا سخيده مجلنين سيدي وباقوته وعلماء قاربا waxay yiraahdeen baa la yiri salaatul khawfka waa la nasakhay sida sheekh Abi Yusuf looran jiray oo kale iyo la yiraahdo oo wuxuu yiri xilligii nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo dadkii la joogay bay gaar ku ahayd laakiin warkaasi ma ahan war la qaatay war laga raajixsan yahana ma war laga raajixsan yahana wayda kunta fiin faaqamta lahum salaatan marka dhex joogtid ayadaas uu qaatay oo macnaheeda ku fasiray ala kulli salaada leeyahay salaatul khawfku ma ku jirto cibaadooyinka ama daacooyinka inta la yimid dib laga nasakhay oo leeyahay halkaas ku akaayeen maana sideedii umbay salaatul khawfka leeyahay u baaqata nabigeena kaleey salaatu wasalaam marka sida la soo gooliyay إلا لح يتبنع أي صلاة الخوف وقصونات لكن إمام كان إمام الشافعي وعقدر تاليري الصدح نوع وكاملة صلاة الخوف قابك النبي عليه الصلاة والسلام وقلت كذي ماشى الليري هذا ذات الرقاع ينخل بطني عصفانة صلاة دي قلت كذي حديث مصاررتي أيال لقاتي وي marar kala duwan oo nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo xaalado kala duwan oo ku sugnaa ayuuna salaatul khawfka nabiga tukada kaleey salaatu wasalaam marka salaatul khawf maxaa loo jeedaa salaatul khaa'if way salaatul khaa'if mid ka baqay salaadiisa loo jeedaa xadiiska koobaad عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وحلق وريه قال إنه يري صلى بنا أنك وحنا تجي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عبسد الصلاة دي بون تجي في بعض أيامه مالمه سقيب كمد أيون تجي فقام طائفة كوحبا وحي استاغن معه مع النبي معي سيلا استاغن وضائفة كوح كلنا قامت يدنا وحي استاغتي بإزاء العدو عدو قابل كيس فصلى النبي وحو تجيه بالذين كوي معه الرسول كمعي هذا ركعة هل ركعة تجيه ثم ذهبوا كوا سويتين وجاء الآخرون كوي كلنا ويمادين فصلى مركز النبي تجيه صلى الله وسلم عليهم بهم أيغنا ركعة وقضت الطائفتان لبدي كوحود waxay guteen ragcatan min hal ragcay guteen salaatul khawfka leeyahay waxa loo kala qaadayaa cadawgu inuu jiro dhanka qiblada xaqiisa ee meesha loo tukanayo iyo cadawgu inuu dhanka qibladiisa muslimiinta ka xigina meel kale uu ka xigo hadii cadawgu uu xigo jihada qiblada jiha aan ahayn waa mid hadda laga hadlayo salaatul khawfka oo dhan inay salaad laba ragcad tahay ma sidoo kale salaatul khawfku ma ahan macnaheedu inay tahay salaadaha aan tukano salaad ka duwan salaatul khawfku waa salaadii faradka ahayd la tukaday iyo qaabka loo tukanayo laga hadlayo labadan ragcad nabigu uu tujiyay sallallahu alayhi wa salaadii markaas de la soo gaabiyay ama xilliga salaada la tukada oo laba ragcad ayadoo subaxii wax la mid ahayd
markii cadowgu uu jiro fi ghayri jihati al-qibla imaamku wuxuu u qaybinayaa ciidanka oo wato sidaan u qaybinaya qaybna wuxuu leeyahay cadowga naga ilaaliya oo jihada cadowga aada oo cadowga wardiyay qaybna imaamka ayaa tujinaya marka nabigu hadda wuxuu sameeyay kaleey salaatu wasalaam tanoo kale waxa weeye Abdullah ibn Umar xadiiskiisa uu warinayo qayb baa nabigu ku soo hormartay salaadii uu tujiyay faatixadii uu akhriyay faatixadii markuu akhriyay nabigu kaleey salaatu wasalaam way la rukuuceen waa la sujuudeen markii ragcada dambe u soo istaagay bay ayagu ka goosteen salaadii bay ayagu dhameysteen ragcadii kale ay la yimaadeen faatixadeedii iyo rukuucdeedii iyo i'tidaalkeedii iyo la yimaadeen atixiyaadkii bay akhriyeen way ka baxeen qoladii kale soo bedeleen imaamku kasto xilliga jooga ama nabiga kaleey salaatu wasalaam qiradii buu ku sii dheeraanaha asaga iska sii akhrisan ragcadii dambe macnaha qiradeedu dheeraynaya faatixadu akhrinaya qira kale akhrinaya qira kale akhrinaya asagoo sidii u taagan bay kooxdii kale u imaanaysaa marka kooxda kale markuu yimaado waa ku xiranayaan faatixada la akhrinayaan marka waa la rukuucayaan waa la i'tidaalayaan markay inta la dhameeyaan ka bacdi way la sujuudayaan asagu wuu iska joogaya marka atixiyaadkii buu ku soo dheeraasii sugay halka ragco dhiman bay soo dhamaysanayaan waa la atixiyaadayaan hal mar bay la salaamo naqsanayaan saasay ku dhamaatay qolada dambe qolada horena way ku xirteen hal ragcay la tahay qolada dambena way la salaamo naqsadeen qolada horena takbiiratu ihraam ku soo hareereen saasa lagu cadaala sameeyay عن عبد الله بن عمر بن الخطاب نك الإرادة رضي الله تعالى عنه صحابي سؤال لغا وريي قال ابن صلى الله بنا رسول الله ونتجيه صلاة الخوف في صلاة الخائف الروح بقى هي صلاة دي سنة تجيه صلاة سنة ونتجيه عليه الصلاة والسلام في بعض أيامه مالمه سغيب كمده النبي ونتجيه صلى الله عليه وسلم مالمه النبي دولمات كقاضي عليه الصلاة والسلام مالين كمده النبي ونتجيه فقام طائفة كوحبا مركز waxay istaageen معه النبي معيسى صلى الله عليه وسلم ومركز صلاه النبي la tukanayaan وضائفة كوح kalena بإزاء العدو قامت iyaduna waxay istaagtay بإزاء العدو cadawga qaabilkiisa ay maaragta istaageen فصلى رسولك بالذين كوحوا تجيه معه معيسى هذا ركعه ركعه ثم ذهبوا ويتغين أي الذين معه وجاء آخرون كوي كلنا ويمادين فصلى بهم ركعة بوتجيه وقطت الضائفتان وحي قتين marka labadii kooxood ragcatan hal ragcayto kadeen way sidaas way qolo walba hal ragcay nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa la tukadeen marka waxa weeye qolana waxa weeye nabigu si sugaya ragca wuxuu ku sugaya kaleey salaatu wasalaam qiyaamkii ku dheeraanaya halkaas sii joogaya ka bacdi markay ku soo xirtaan ka bacdi kuwaana tujinaya الحديث حديث الثاني لبعض عن يزيد بن رومان إنك اللي هذا وحال عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير إنك وحكوري عمن ضدنا وحكوري صالح إنك اللي هذا صالح بن خوات بن جبير وحكوري عمن ضدك صلاة كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات الرقاع كرمها مدو صاحب كاهيد غزودي كرمها صاحب كاهي صلاة دي سددك لتو كذا نبي وحو كتج وحو ننكاس وكوري صلاة الخوف لتو كذين أن ضائفة كوح صفتين معه النبي معيس وضائفة وأن ضافة كوح كلنا وجاه العدو عدو قابل كيسي صفتين فصلى رسولك بالذين كوحوا تجيه معه معيس هذا الركعة هل ركعة ثم ثبت النبي واسقنا قائما حال ويمدك تاغن markuu hal ragcad jeer ragcada dama qiyaamkeeda waatimu kuwaan la anfusi nafaftooda u sii dhameysteen thumma sarafu way gadoomeen fasafu markaasay waxay safteen wajaha aladu cadawga qaabilkiis وجاءت الضائفة كوحدي اياتمد ضائفة سؤال اخرى كان ثم صلى بهم نبي ركعه تجيه التي ركعتها سو بقيت هداي
ثم ثبت النبي واسقنادي جالسا حاله يمدك سغان فديا واتموا لانفسهم نففيالكودي u dhameysteen macna ragcada u hartay ثم سلم رسولك صلى الله عليه وسلم بهم kuwan dambe ayuu nabigu la salaaman naqsaday عليه الصلاه والسلام horta ninka la yiraahdo Yazid ibn Rumana waa ninka reer Quraysheedo مولى آل الزبير المدني القاري قارينا واها نكاس وهنا سن ثقة عالم السيد إمام النسائي وشيء نينك اللي يراهدو خوات بن جبير كاسنا سنة وحوي أو صالح وتابعي أسقى مركا نينك مركا أولا كل ما يقول لي عمن صلى مع رسول الله صلاة ذات الرقاع ninka la leeyahay oo la kulmay waa saxaabiga la oran jiray Sahal ibn Abi Hathmata saxaabi reer Ansaareed oo reer Madiina ahaa daatu riqaacda marka xadiiska lagu sheegay buur magaceed inay tahay waa la sheegay oo buurta midabkeedu wuxuu ahaa sidii buur karma waxay ku dhagdhagay yihiin oo kale oo waxay lahayd midab kala duwan bay lahayd markaasay waxa moodaa inay maryo cadadii ay dul saaran yihiin oo buurta nooca ahayd wali maye waxa la yiraahdaa turqaaca waxa laga wadaa asxaabta nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa maalinta waxa ku dhacday kabalaan kabiiba ka go'ay kabihi markay ka dhamaadeen mariyii ay wateen oo karma cala Allah bay lugaha ku xirxiranayeen ila meesh waa dhagax dhul la mari kara maahan marka maalintaas karmaha la sheegay waa midaas waa la sheegay salaatu daat riqaac waa leeyahay marka saasaleey marka sanadkii shanaad bay dhacday meeshuna waa ardu qatafan min najd sumiyat bidalika lianna aqdam almuslimiina muslimiinta albaagamadahooda ayaa naqabat baxday min alxafaa'i markaasay karma ku duuduubayeen ama buurtaaba sida u ekayd intaba waa leeyahay marka intaas waa lagu sheegay xadiiskan marka iyo xadiiskii hore way isfasirayaan macnaha waxba kuma kala duwana waxada ay kala duwan lama arko xadiiskana wuxuu si cadeeyay qaabkii nabigu uu u tukanay kaleey salaatu wasalaam sida xadiiskii hore macnihiisa aan ku soo sharaxnay kana si cadeeyay Yazid ibn Rumana marka ninka la yiraahdo waxa laga wariyay aan Salih ibn Khawati wuxuu ka wariyay ibn Khawati ibn Juwayrin amman wuxuu ka wariyay منكو صلى مع رسول الله تكذي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف اللي تكذي عبسي صلاة دين مركا اللي هي عمان ورت جهالة الصحابة لا تضر بالين قفك ماشى كما قالوا جاهل كلا يدو صحابي هدم ملي هذا حديث قابل العدين وننكا هي وعقلتك وحننكا سوريا أن ضائفة كوح وحو يري أن ضائفة كوح يا صفت مع رسول الله مع رسولك معي ساي صفتين هاي وضائفة كوح وضائفة وانا ضائفة كوح كلنا وجاه العدو عدو قابل كيسي صفتين فصلى رسولك بالذين كوحوا تشي معه معي هذا ركعة ثم ثبت النبي واسقنا قائما حاله يمدك يتاغن واتموا كوانا لانفسهم ففيالك وضع يوصي لما يسترتين مركا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة صلى رسولك بالذين معه ركعة بوتشي ثم ثبت قائما ركعة الدنبي استاق قيدي النبي استاق واسكا حصل عليه الصلاة والسلام وايه واتم ويغنا كوي لتكد لانفسهم ما يسرتين ثم انصرفوا ويقدومين فصفوا وجاه العدو بيصفتين وجاءت الطائفة واتم الطائفة الأخرى كله فصلى بهم الركعة بوتشي نبي الله تيمداس وبقية هرتي ركعتي هرتي بوتشي نبي عليه الصلاة والسلام ثم ثبت واسونا جالسا حاله يمدك فديه oo fadhigi macnaha inta ragcada kala soo dhameynayaan tixiyadkii ku sugayaan واتموا لانفسهم بو دمسترتين ثم سلم بهم رسولك عليه السلام عليه الصلاه والسلام marka xadiiska maantaas marka wali marka waxaan joognaa adowgu wuxuu jiraa markaan muslimiinta ay sida u tukanayaan wali adowgu wuxuu jiraa jihada qiblada jiha aan hayn buu jiraa jihada qiblada jiha aan hayn buu jiraa muslimiintuna way badan yihiin oo kathra ayaa ku sugan mar ay saabsay يقصوا سؤال الحديث الثالث حديث هذا وسونا باب كان كمذا horta waxa tiraahdaa الرجل كالذي الرجل كاسو
الذي صلى مع النبي لتكدي هو سهل بن أبي حثمة ساسواك كدري الرجل رجل الذي رجلك وصلى مع رسول الله هو سهل بن أبي حثمة إنك الأورنجيروا قصصا. وعن جابر بن عبد الله وحال قوري الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال إنه يري شهدت وحن حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عبسيد الصلاة ديدا النبي قال أحاضرين فصففنا مركاسا وحن أصفرنا صفين لوصف خلف رسول الله رسولك إلهي كذلك صلى الله عليه وسلم والعدو عدونا بيننا أنك بين كينية وبين القبلة قبلة أيوه دحية عدونا أنك هي قبلة نور دحية جهة القبلة بمركان عدو حقا فصلى النبي عليه الصلاة فكبر النبي واكبارته صلى الله عليه وسلم وكبرنا واكبارنا جميعا حاله دمان ثم ركع النبي والركوع صلى الله وسلم عليه وركعنا وركعنا جميعا ثم رفع رأسه ونبي مدح يسوع وكسر كريه من الركوع ركوع دي ورفعنا نونا وانسوكرنا جميعا حالا دمان ثم انحدر النبي واهبطي بالسجود السجود أيوه هبط والصف صفكينا واهبط الذي صفكه يليه النبي كحيقه ولا حريره وقام الصف صفكينا واستاغ صفكا سو المؤخر إلى قدال مري في نحر العدو عدوغا قابل كيسي استاغين فلما قضى النبي مركو قلت صلى الله وسلم عليه السجود السجودي وقام الصف صفكينا سو استاغي الذي صفكه يليه النبي كحيقه ولا حريره إن حضر الصف صفكي واهبط صفكا سو المؤخر بالسجود بهوتين وقاموا ويسو استاغين سجود أهبتوا وسوكعين ثم تقدم صفكي باهر مري صفكو المؤخر لقدال مري مركو لقدال جري وتأخر الصف صفكينا قدال بأسو بحي المقدم الهرمري ثم ركع النبي ونبي والركوع وركعنا جميعا ولا ركوعنا ثم رفع رأسه ونبي مدح يسوع من الركوع كسو كريان فرفعنا نقر وانسو كريان لرؤوسنا جميعا حالا هاي ثم انحدر النبي بالسجود السجود وهبط والصف صفكينا وهبط الذي صفكه يليه النبي الحريري الذي صفكه سو يليه الحريري الذي صفكه كان هذا مؤخرا من الجدال مري في الركعة سؤال الأولى وقام الصف صفكينا واستاغ صفكه المؤخر للجدال مري في نحر العدو أيو استاغ فلما قضى النبي مركو لما يستاغ السجود والصف صفكينا ودم ياسنا السجود صفكا سو الذي صفكه يليه الحريري إن حضر الصف صفكي با هبطي للسجود وهبط صفكه المؤخر للجدال مريي بالسجود وهبط فسجدوا وسجودا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي وسلام النقصدي وسلمنا وأن لا سلام النقصدنا جميعا قال جابر وحويري كما سيدي يفعل حرسكم ورديه نكسم أيه هؤلاء كوانا بأمرائكم مدحدين ذكره مسلم وذكر البخاري حديث كما حسين ظرفا قيب ومنه كمذا وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع أيضا ناس يوشين مركان كيفية صلاة الخوف كلوتو كذي أيضا وكيفية مركين وعيدا كمسلمين تو عدو وكحيقه وقبلة جهاد إذا مركو كحيقه ولما واحد ودرتا مسلمين تونا أي بديه ولما واحد كسي جرا ولما عدو إيه مسلمين تنا أو سنوح ساتر أود حينوي وح أود حيا يلا ما أركو مسلمين تكثر كسي ويبديه عدو إيه مسلمين تنا وح أود حيا يلا ما أركو هذا يرتا هذا حلق اللي تشوفه haddii cadawgu uu dabaabaad uu muslimiinta ku garaacayo leynayo de madaafiic ku garaacayo hadda waxa laga hadlayo ma ogtahay ciidanka gaalada iyo ciidanka muslimiintu waxa dhan warmay haystaan warankiina kaama soo gaara adiga halkaan adoo taagan halkaas fog dhul banaan baana u dhaxeeya iyo seef nin haysta midna kuma soo gaaro de hadda xilligan la jooga haday dhacdaba jihaad sax oo madax macnaha amiir hogaamiye sax leh oo isku hagaagsan la helo marka saan loo tukanayaa de waa haday suurtagal tahay way hadii kalena sidii kala dhici karta loo tukanayaa ama jamaaca lagu tukado ama yaa loo tukan ama hal loo tukada saas ما أنا أقدر عدو هالمر صف القلم هاي سوق كوتشي هال حبضة وكوسو فراعيدا كنا أي لماينس
kaas laga hadli maayo laakiin xilligaas hubkii la haystaa loo jeedaa marka qaabkan loo tukanayo waa markii cadowga iyo muslimiinta wax u dhaxeeya la arag muslimiintana cadowga uu ka xiga dhanka qiblada uu ka xiga way dhanka qiblada uu ka xiga muslimiinta iyaga wax u dhaxeeya lama arko muslimiintu waa dad badan oo tiro badan kaas markaas way waxa loo tukanayo maana mar walba dhan ma noqonayso عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وحل قوري الأنصاري رضي الله عنهما قال وحيد شهدت وحان حاضري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلاة الخائفة وحاضري فصففنا مركاسان صفني معه رسولك معي صفين لو صف فصففنا صفين ما صفني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك إلهي كذلك والعدو عدونا والحال أيان صفنا العدو عدونا بيننا أنك وبين القبلة قبلة ودحية فكبر النبي كبارتي وكبرنا جميعا ضمان هالمرة على لحرت الله أكبر يا هالمرة لي ثم ركعنا وركعنا ولا ركوعنا جميعا حالنا ضمان ثم رفعنا براسه ومدحه سوكريا من الركوع دي ورفعنا وانسوكريا رؤوسنا أننا جميعا ثم مركز بعد قيد إن حضر النبي وهوبتي بالسجود السجود والصف وهوبتي إن حضر النبي بالسجود والصف وهوبتي الذي صفك يليه النبي كحج صفك كحجنا ولا سجودين وقام الصف صفك واستاغ صفك المؤخر لقدال مري في نحر العدو في مقابلة العدو عدو هرتي سوء استاغ وانا لو jeeda cadawga dhul banaan baa u dhaxeeya wax u dhaxeeya lama arko hadii cadawga iyo muslimiinta ay saatir u dhaxeeyo هذا قيبنا نبي قال له كنا قيبنا عدو إلى الله سيد هراكنا فلما قضى النبي مركو قتا سجودي وقام الصف صف كنا سوى استغل الذي صفك يليه النبي قال لا حد يري إن حضر الصف إلا النبي يكوح عن هرا مركانو تشد عدو إن حضر الصف صف كيبا هوبتال مؤخر ولا قدال مري بالسجود وهوبتين وقاموا وعسوا سوى استاغين ثم تقدم وحا هرمر الصف صفك المؤخر ولا قدال مري صفكي marka hore gadaal xigay ayaa hadda nabiga ku soo xigsado soo hormaray laba tilaabay qaadayaan ama hal tilaabay qaadayaan dhanka nabiga kuwa u tilaabsanayaan kuwana hal tilaabo ama laba tilaabay ila saddex xarako isla xirta laba ogole hal tilaabay gadaal soo qaaday markaas gadaal soo galeen kuwan ثم تقدم صف هرمر المؤخر لقدال مري وتأخر صفكنا وقدال مرال المقدم الهرمري ثم ركع النبي بالركوع وركعنا ولا ركعنا جميعا ثم رفع النبي رأسه ومدحه كسو كريه من الركوع فرفعنا نونا وسو كريه لرؤوسنا جميعا حالا نهي ضمانتين ثم انحدر النبي بالسجود وهبط والصف صفكين وهبط الذي صفك يليه الذي صفك كان هذا مؤخرا من قدال مري وهذا النبي كحيغوي في الركعه الاولى ركعه هورن منكي قدال جري لك هذا هور سو مر النبي الله وقام الصف صفكين وصفك المؤخر لقدال مري في نحر العدو عدو قابل كيس عدو ربديسا waxa laga wadaa waa cadawga hortiisa qaabileen falama qada nabigu markuu dhameeyay sallallahu alayhi wasallam sujuudi markay dhameeyeen wasafu safkiina u dhameeyay alladii safkaasoo yeelay la xariiray hadar safu safkii waa taal mu'akhar la gadaal mariyay bisujud fasajadu markaasay la sujuudeen nabiga calayhi way sujuudeen thumma sallama nabigu wa salaama naqsay wa sallamna jami'an anagu nabon la salaam naqsan marka labada kooxoodba way qaybsanayaan waardiya cadaalada midda kale loo sameeyo fiiri hal kooxii nabiga iskaga xigi mayso oo safka hore iskaga jiri mayso qoladii ragcada hore xigtay gadaal baa la soo mariyay sidaas weey قال جابر وحير كما سيدي يفعل حرسكم وارديهن ان اي سميان هؤلاء كان بامرائكم حدر سيده مدحدين امردين وارديسين ذكره مسلم الحديث كما مسلم باحسب بالتمامي وذكر البخاري وحسن ظرفا غيب ومنه حديث كمده إيه وذكر البخاري وحسن أنه صلى جابر تكذب صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقعة مركز سيدا سيا نبي تجي عليه الصلاة والسلام لبدا كيفية نواد كلا فهمتين مرنا عدو وحو جرا طيب الله حق هذا مرة واكدوين هاي وايه كتاب الجنائز هذا مد كان ما باب الجنائز هذا مد كان باب الجنائز جنازوين كباب كودي وي الجنازه markii la yiraahdo jim kala kordhigo jamcu janaazatin horta waxa lagu wariyay bil fath iyo wal kasr waa laba luqo kasradana afsaxsan
وحال الشيء جنازة مركي لي جنازة هي جنازة أنت وبنانتها جنازة مركي اللي يراهده وحال يري وميت كلفتي سالة قبضها مركي اللي يراهده جنازة ونعشك وميتك كتشرو مركي انت بوالله أديك سنكرا جنازة إلا قبضها قفك دنتي كلي يعني قفك دنتي وهذا نعشك كتشرو لقبضها لبضه ويشرتاوه قال الجوهري الجنازة بالكسر واحدة الجنائز والعامة وحي تقول الجنازة بالفتح غير هذا سو عامه وكعبر الشيخ أزدتك الجنازة الليلة وهو عبارة عن الميت على السرير ما لقى عبرها كلها فجنازة لقى عبرها فإذا لم يكن عليه الميت مركب ما يبهاش نعشك هذا الميت كوتشرين وكل جدا يتحي سرير باليرا نعشنا واليرا هذا هي وقال وحكث على النبي وحو في فقه اللغة أن النعش ما يكون عليه ميت وإلا فهو سرير مركي ميت كجرا أي نعش يا بير تيك لا سرير مسكن غنايا باش أز مركي النعش كا مركي قفك وصاء أجمر وإلا هذا ليس بالي لسان الحال أي كل هذا ليس أيضا الله هذا الشيء كدقنت وحين الله هل يري أنا سرير المنايا أنا المهيئ لنقلك كم صار مثلي لمثلك وإلى هل وحين الله هل يري أنا سرير المنايا كيريالك سرير تودي بارنجا أنا المهيئ لنقلك أديك رد أديك جورد هذا مد الله دياريانا كم صار إمسو الله صعد مثلي أنا جوكل لمثلك أذوكل ساس إلى أفكم مركز أجمل والرأي هذا أنت نوشة إلهي كعبس وددال ساسي كل هذا معناه أنيقا وحال إيد دياري إن دتك أنت لا يقول قاعد ساسا مسرير تاسا أوديار سنة ساسي لذلك عن أبي هريرة وحال قوري قال إنه يريد على وري عن النبي أيا خبر جيريادي عن النبي أيا أخبر جيريادي النجاشية بقرك النجاشي الحبش اللي ورنشري في اليوم مالنتي الذي يوم كاسو مات ودنتي نجاشي الحبش فيه يوم كدحيس وخرج النبي وانا صباح بهم ددكي ولبح الى المصلى مكان تكتك فصف بهم وصفي وكبر وحنا لك بارتي 4 صلاه افرق عليه حديث كمرك وحياه بدن با كسو horta naacigu naaci waxa la yiraahdaa naaci waxa la yiraahdaa من يخبر بموت من يموت قفك انتي قفك كسو ورما ناعي اللي يراهدا خبر غيرياد waxa la yiraahdaa من يخبر بموت من مات قفك انتي قفك soo sheega baa naaci la yiraahdaa kaasa la yiraahdaa najaashigu marka boqor kaste oo ka taliya xabasha magaciisa waxa la yiraahdaa najaashi madaxweyne oo kala weyn Soomaalidu soo qofka soo madax noqdo madaxweyne lama yiraahdo inuu qofka dadka ka madaxweyne laga waday waxa loo jeedaa waa macna xilka uu haya magacaas u bixin arada qaar waxa la yiraahdaa ra'iis baa la yiraahdaa meelaha qaar malik meelaha qaar luqooyin kala wata wax kale loo adeegsado marka nacyigu waxa loo jeedaa khabarul mawt qofka naacigaana waxa la yiraahdaa man yukhbiru bi mawt man maata qofka dhintameedkiisa qofka soo najaashiga marka waxa niri qof kaste oo meesha xabasho ka tirey waxa la yiraahdaa najaash boqor kaste laakiin ninkan ashama ayaa loo oran jiray ashamana waa la sheegay ashamatu ibn abjar ayaa loo oran jiray magaciisa saas la jiro najaashi marka waa boqor kaste oo xabasho ka tiriyay boqorada muuminiinku waa amiirul muuminiin boqor kasto reer Ruumi waa Qaysar boqorada reer Faris waa Kisra boqorkii Turkiga waxa la oran jiray Khaqan reer Qibdi meelahaas boqoradii soo maray adduunyada waayii hore Fircawn iyo watay ahaayeen boqoradii Misr waa Aziz Yemen waa Tuba saasa marka boqoradu waa macnaha magacyo ay leeyihiin waa eemaana najaashi qof magaciisa ma salaadan marka nabigu kaleey salaatu wasalaam horta hadiiska waxa ku sugan qofka dhintay in dadka la ogeysiin karo oo la iclaamin
qasad diini haduu ku jiro war hebel baa dhintay war la isku yimaado in la dhihi karo hadii meesha qarad diini ku jiro qarad diini wuxuu noqon karaa dad badan inuu ku tukada la rabaa midna in la ogeysiyo waana sunnana oo qofka inta dadka loo sheego si janaasadiisa dad badan oo soo qayb galaan dad badan ugu shafeecaan ayaa la rabaa waxa kale oo ku sugan إثابة الصلاة على الميت المسلم قفك مسلم كاهي إنه ثواب يا أجر وكيلة يا صلاة لو تكذ وعلى قصة النبي عليه الصلاة والسلام حديث قاعد قصة صلاة وكتب كذي نجاش الحبشي واجب أي حي معايا لأن كان وحو كتب كذي وحو كل طي حيث ما أنت بأرض لم يقوم بها فريضة الصلاة عليه meel aan inta hadda ku tukanaysa la arag buu ku dhinta muslimiina joogan wadada joogan laakiin dadkii waxa macquul ah xilligaas inay salaada janaasada ay sagareen marka nabiga kaleey salaatu wasalaam islaamka geeriisa lagu siiyana khasab bay ku ahayd hadana in lagu tukadana waajib ah xadiis waxa kale oo ku sugan mucjiso nabiga kaleey salaatu wasalaam uu leeyahay ku sugano maxay ninkan Itoobiya ku dhinto asaguna nabigu halkaas ayuu joogay Itoobiya ninka ku dhintay si uu ogaaday هذا النبي عليه الصلاة والسلام معجزات كيسا كمتها إذا إله وقسي وعقلوا حديث كوسوغان مشروعية أما شرعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد قفك مقن ومشاء دقنتها كم مقن إن صلاة الجنازة الغائب لو تكنها حديث كلغا قاتي وحديث كامو صلاة الجنازة الغائب أي لو تكنها أيضا ويكوسوغان تا حديثك ماذا بكي النيو وصاصي قبان waayahay marka inahaas oo dhan ayaa ku sugan way salaatul ghaibka marka xaafadan hadii qof xaafadan ma ugu tukan karnaa qof xaafad kale oo Nairobi kamid ah ku dhinto xaafad kale ruux ku dhinto annaguna halkaan u joognaa magaalada Nairobi aan joognaa annagoo isli joognaa xaafadahaas kale South iyo South B iyo feeda iyo qof ku dhinto ma loo tukan karaa maya ma tukan karo qofku waa inuu meesha salaatul ghaibka lagu tukana meel ka baxsan waa inuu ku dhintaa maana qofkii halkan jooga janaasadiisa xaadir hadii aad rabtid inaad wax uga tukato macnuhu saas أنا بقول رضي الله تعالى عنه وحلا قولي قال إنه يرين عن النبي قال يا خبر جريادي خبر كي جريدي سوسور شيء قف شيء وأمره ويه النجاشي إنك النجاشي لو ننتري في اليوم ما أنت الذي يوم كان سوما تور أنت في يوم كدعيس وخرج بهم نبي قدتك وحول بحي إلى المسلم كانت تكتك فصفى بهم نبي وصفي وكبر نبي وكبارتي أربعا صلاة أفر كبار الله أيون نبي وكبارتي أقول لك قادنا صلاة الجنازة أفر كبار ودنيت وعوي إن ضدك إن طلب بحيم مال جارة ليس كوجو جين كرو وجنازة لوجو كرو لك قادنا وحيا الله صلى الله عليه قادنا حديث كتير الحديث زان عن جابر بن عبد الله وحلا قوري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي إنه كنت كذي فكنت أنا وحابا أهابو يري في الصف كسفك الثاني لبعض أو الصف الثالث من كتير شككم تشير إن كان النبي يقول صلاة الغائب تكذوي أنا الصف كلبعض بان كتير ما كسر حد بان كتير كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي قوات كذي النجاشي أبو كنت كذي فكنت وحا في الصف كسفك الثاني لبعض إيه والثالث هي وحا مركا حديث كان كسو كان فيه استحباب كون الصفوف في الصلاة على الميت أكثر من واحد صفوف هل صف كلية أنا لقد جينا لبضينها يا كسو سيدو كلمات كسب كيس إلا بدن سيدا في عنه أساس هذا مثلا كوحير هدي اللي يهو ميت ماشان لولته كان يو انت صفك هل كاس لوف بلارين لها وتني مساجي جيس كجيس لجين لها sida ka fiican waxay tahay in sufuufta la badiyo oo ilaa masaajidka albaabkiisa soo qayb loo istaago sunnadu waa sidaas صلى النبي على النجاشي أن النبي صلى على النجاشي فكنت وحا في الصف الثاني أو الصف الثالث هل كان كتشري به ساسوا وهو بعض من الحديث الأول أيوه كمذي هالي وثبت عن بعض علماء من الصحابة أنه كان إذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوفا كما سلف طلبا للغفران سد قفك عند مدافع إلهي الأودي لا سطح صفوف يكبد الأود كذا الربابرك سيد أسوا وهو مركا نين كان ليرى نجاش في الحبشي وهو بقر وناكسن وصالحة الخيرة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مركا حق التجان أيونه كسو إسلامي مركا الدين تقوشي كيين والنبي الله عيسى ولو الودر الصحابة كفار قريش نوكل ليرى مركا الصحابة هاجرين
jacfar ibn abi daalib iyo cuthmaan ibn cafaan iyo raggaas ayaa ku jira khiyaartaas ku jireen markay meesha tageen bay waxa ka daba direen amr ibn al-aas oo xilligaas aan soo islaam ahayn waana nin aftahan oo daahiyatul arab la oran jiro masiibaha ah meeshii uu inta tagay buu marka boqorkii markuu u tagay buu nimankan wax ay aaminsan hadaa ogaan lahayd ilaa ninkan nin masiixiyo way mugta waa nin nimanka nasaarada ah buu ah waxa ay nabi ciise ka aaminsan yihiin hadaa ka warqabi lahayd walaada soo dhawaysateen bi waa u yeer suuri nabi ciise maxaa kaleedii markaas ay wixii nabigeenu ka yiri baan kalan maxaa kaleed nabigeenu ka yiri waxaan kaleenahay in ruuxu ilaahay yahay waxaan kaleenahay inuu nabi ilaahay yahay waxaan kaleenahay inuu ilaahay rasuul soo diray aha waxaan intaas bay ku daldaleen wuu yaaba markaasuu yiri wixii nabi ciise la yimid iyo waxa idinku nabigeenu la yimid lamin mishkaatin waahid hal darashada ay ka soo baxeen bi waa isku mid buu bay marka ka bacdi ala kulli saas ku soo islaamay way sagi Jaafar ibn Abi Talib markii la doonay Abdullah ibn Amr ibn Aas kay asaga laftiisana soo islaam ilaahay islaamku iyo diintu soo gali ninkan marka waa taabici asag jaasul habashi waa taabici saxaabi ma ila nabiga lama kulmine ninka boqorka meesha maamulo way marka soo isku laha nabiga maanta u tag biru u tag xsaaniye xagga aad soo isku laha ba waqti uga soo hormar taas ku dhinto marka waa taabici oo markaas waxa weeye asagu waa taabici ila nabiga saxaabinimada waxa u shaday qofka nabiga inuu arko rag badan oo saasana way jiraan oo iyagu nabiga oo nool soo islaamay iyagu nabiga la kulmina nabiga uu ka geeriyooday kaleey salaatu wasalaam ama uu geeriyooday saaswi aan Abdullah ibn Abbas waxa laga wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam sallallahu nabigu tukaday wiir ala qabri ayuu ku tukaday bacda ma dufina bacda dafnihi fakabbara nabigu alayhi qabriga korkiisa wuxuu ku kibaartay 4 nafar أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بكتو كذا بعد ما دفن بعد دفنه فكبر النبي وكوكو بارت عليه قبر كركس 4 ميت كمرك لا اسك بعد انا كنت كان كرت حديث كان لا قادنا مرك لا اسو مثلا جنازه راعي لهيد وصلاه واكو دافت مرضن با كدبا تagت ميدكي لا اس قبرك صلاه الجنازه كله تكنيس مرك حديث كان وحو أهابان ليده هذا القبر يحتمل أن يكون قبر السوداء الذي كانت تقم المسجد إنه قفك ليهنا وادع كرتا شيخ ابن الملقن سراج الدين ابن الملقن سوى شيء وحاوي قبر وحا تشري أحاديث تقاركون نمبا يكون شيء سيدا راجح لكن قف دمر هاي مساجد كنبي كشقين جرتو حاقي جرت ما أنت الدنباي لما تمرك markay dhinteen saxaabadu waa la dhaqay meedkii waa la iskaga tukaday is hawsh saas lagu soo xiray nabigana looma sheegay marka riwaayooyinka qaarka waxay yiraahdaan ka annahum taqalluha waa iyagoo yaraystay way fududeysteen qofka masaakiinta nabiga waxa loo sheegay saas la sir bas sidii baa lagu soo aasay nabigu wuxuu yiri maxay ugu soo sheegayday rasuulka ilaahay kuma soo sheegay qabrigeeda la geeyo saasuu nabigu markii qabrigeeda ugu tukaday kaleey salaatu wasalaam ruuxa inuu yahay way dhici kartaa qof kale inuu yahay way dhici kartaa حديث كبرك على معناها مركل اللي يراهدو مثلا مضافنا وقدريه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله كده على قبر على صاحب قبر صاحب جس بعد ما دفن بعد دفنه فكبر عليها 4 أفر كبارات صلاة الله بكتو كده النبي عليه الصلاة والسلام مركا أي معناها قفك مركل لعاسك بعد والوتو كان كرا في الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر بعد دفن الميت وهو مذهب الشافعي واصحابه ومن وافقه يرجع صافي سيد اوزاعي امام احمد اسحاق بن راوي رجع صدا رج ديدنا way jiraan imam malik asxaabtiisa kamid ayaa diideen bal waxa u dalisadeen marka sidaas weey marka nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu sidaan u yeelayaa dadka ayuu barahayaa in sidaan qabriga markii la aaso hadaysa suurta galahay aad markii hore ku tukan haddana inaad ku tukan kartid saasuu nabigu dadka baraya kaleey salaatu wasalaam sidaas weey qabuuraha xadiis kale nabigu waa tuu ku yiri qabuuraha sidoodaba waxa ka buuxa mugdi in hadhihi alqubur mamlu'atun dhulmatan waxa ka mamlu'atan hadhihi alqubur quburtan mamlu'atun mid laga buuxiyo way dhulmatan mugdi ka buuxa bi ala ahliha wa inna allaha ta'ala yunawwiruha bisalati alayhim tukashada aan ku tukana ilaahay ku nuurinaya nabigu kaleey salaatu wasalaam marka saas waa ilaahay marka ducada waa lagu fasiro ducadayda inoo qartaa iyada marka waxa la yiri
goormee sidiisa qabriga lagu tukanaya ilaa 3 maalmood oo kale madhabka Abu Xaniifa qaba ilaa bil hadduu asnaado ka bacda hadaa timaadid Imaam Ahmed baa yiri maadaama yabqa shay'un fil qabri wala yiri inta qofkan qabriga uu wax un kamid la islay ugu dhaqay waxa galo la yiri abadan marka sidaas waa madaahibtu saasay u kala duwan yihiin laakiin ala kulli meedka markii la aasay ka bacda nabiga inuu ku tukado calayhi salaatu wasalaam mudana aan loo qaban ayaa xadiiska ku cad الحديث الرابع عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحل قوري قبل أن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم كفنا الرسول كإنه كفنا فيه 3 أثواب صدح مرة 3 أثواب تاسو يمانية يمن نسبه أثواب بيض على عض أثواب ليس فيها نحن دوسان قميص ولا عمامة الناس كتشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا وحل عصي فيه 3 أثواب صدح مرة أثوابته يمانية النسبة تاسو بيض على العض ليس فيها قميص وسكوتشر ولا عمامة وسكوتشر رواية كقاربة مركع عقوسون أصلا هذا النص صعدت سحولية مسوى بكوتشر تابع أنا رسول الله يكفينا في 3 أثواب 8 سحولية مقالة السحولة اللي إلى النسبة ومقالة مقعد والي haddii waxa la yiraahdo suxuuliyatu la yiraahdana un cad un baa laga wadaa way hadaan kaliftiis aad u siicad baa laga wadaa saas ayaa loo jeeda xadiiskana waxa laga qaadanayaa meedka horta inaan lagu qaasay qamiis iyo cimaamad iyo koofiyo midna inaan loo galay kafantana inaysan laguna sunnayn kuna jirin qamiis iyo cimaamad waxa kale laga qaadanayaa xadiiska istihbaabu takfiin fi 3 athwaab meedka in la rabo in lagu aaso ilaa 3 mar haduu nin yahay waad garanaysaa ninkii waxa lagu aasay 3 lafaa'ifa 3 mar oo dhaadheer oo mid kasto kamidii kaligiis uu meedka asturi karo 3 lafaa'ifa loo jeeda 3 mar oo dheer oo mid kasto kamid meedka kaligeeda asturi karta way qamiis ciimaamadna lagu daray maayo waxa kale oo hadiiska ku jirta iijaabu takfiini in meedka in la karfanaa ay waajib tahay waxa kale oo ku sugan maradu inay caddahay inay sunnah tahay inay caddahay si nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu daydo intaas oo dhan baa ku sugan وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها الأنصارية رضي الله عنها وعلى ورقة قالت كبرنا سنتين دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت مركي الله أفسد ابنته قدبديس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه اغسلنها قبل دقة 3 صدح أو 5 شن أو أكثر وحكبدا من ذلك معنى أنت وحكبدا إن رأيتن هداد رأييسين ذلك إكثار كاس بماء بيكون يوسدر قب جيت كليران واجعلنا يلا في الآخرة في قصلة على الآخرة دم كافور يلا أو شيء يلا شيء من كافور فإذا فرغتن مركز دميسين غسلها وي قبل دقيقتين كذا فآذنني إسوغسي مركي أدميسين إسوغسي فلما فرغنا مركي أدميني آذناه النبي عليه الصلاة والسلام وانسوغسيني ونصر شيئا فأعطانا وحو نسي النبي حق وهو مع وستسي ونسي أما هسقنتكيسي حق وهو هسقنتكيسي أما مع وستسي فقال وحو النبي عليه الصلاة والسلام أشعرنها قبل أغتشر نجية إياه أشعرنها حق وضع أشعرنها قبل وجود جسد نتيجة إياه حقوقه يعني إزاره وجهه وفي رواية واحد كسرنايد أو اغسلنا قبل دقة 7 تضبط وقال النبي وحيره ابدأنا كبلابا بميامنها مدقيال كذا إيوه مواضع الصلاة مواضع الوضوء ويسقات كميلهيس ومنها قبل كمذا قال الراوي حدنا وحيره وأن أم عطية قالت وحي تربويري وجعلنا رأسها مدح إذا وحانو يالنا قبلنا 3 قرون 6 جيس أيام أصمينتر ويا حديث كان وحيالا بدن باكو سوغانا هورتا غبدانو سيده مشهوركا وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم gabadhii la oran jiray ayadaaba hadda gabadha uu macdiyo way ku cadayso Soomaha riwaayinka qaar bay ku cadayne tuufiyat ibnatu ku tanasooyinka qaar soo ma qorayaan oo Zaynab ay soo wehlin marka gabadhan waa Zaynab sida mashhuurka
qowlka jumhuurtuna waa sidaas u marka anu mu'adiyata al-ansariyah radiyallahu ta'ala anha waxa laga wariyay qaalat inay tiri dakhala alayna rasuulullaahi bana soo galay sallallahu alayhi wasallam xiina tuufiyat markii la oofsaday ibnatu gabadhiis waa intii aan dharkii laga bixin oo gabadhii dhaqitaankeeda la bilaabay فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسلنها قبل دقة 3 4 دقائق و5 دقائق واكثر وحكبدا من ذلك انتاس إن رأيتن هذا رأيينيس إن ذلك إكثار كاس بماء بيكون دقائق وسدر قب حديث مرقع الله هذا يا ميتك إن هالمركلية بيلغود داديو هرتا وحا كفلا واجبك كان عيا تعميم بدنه بالماء هل مر إن ميتك مرة واحدة شركي سودا بيلغو عميمه واجبك ساسو كان عيا لكن سيدا أكمل كاي وحوي إن ميتك لو استجيو لو ويسقاد كاملة ويسقاد كأن غانيو كلا وفكو مركو نولا كوضو الحي لو ويسقاد إن مركا كبعد ميتك لدقوي صدح قوريا كبدا لدقو يغسلنا قبلنا مركا دقا 3 صدح أو 5 دقا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك دار ينسين بماء بيو وسدر قب وعقلوا لك قادنا يا صدح قور كليه إن لجوك كوبا إن السرداين لكن صدح القور يكبر واحد لورنا جاي واحد علاد لورنا جا ماشى تعال أما ميتك وسقبا كتال أما ديك باكويا أما وحباك كيمت أما وكاسا ساس الله سميره أما وكاسا بدنا واحد إن رأيتنه يرينبو عليه الصلاة والسلام وقت هذا الرئيس مركز واحد ربع جو ترسج إسرائيل بالربع أفر قور هدي وسقدي وحي اللي دميه شن اللي جارسيا سنة هدي اللي بالو دميه صدح اللي جارسيا سنة مركز ترسج إسرائيل بالدنيا ساس يلا دونه ياو waaye waxa kale laga qaadanayaa deemeedkii in sidrigaas waa geed wax lagu carfiyo wax lagu dhaqo oo macnaha wasaqda lagu dhameeyo in lagu dhaqaayo haddana wixii ka bedelaha lagu dhaqaayo saabuunti waa lagu dhaqaayo shaambadii baa lagu dhaqaayo wixii kale la heli kara lagu dhaqaayo waaye gabadhii marka sidaa u dhaqoy waj'alna yeela fil aakhirati midda ugu qaslada ugu dambaysa fil aakhirati fil qaslati al aakhirati kaafura yeela aw shay'an shay'an min kaafir aw shay'an min kaafir wa shakku min raawi فإذا فرغتن مركات قبل دقمه فإذا فرغتن غسلها فآذنني سوء فلما فرغنا مركان فارغنا بآذنه سوء سيني فأعدانا نبي وحنا سيحق وهو كوسكنتجيس أمام عوسيس فقال نبي وحنا أشعرنها وجسد رجية قبل به إزار أما إياه معناه حقول يعني إزاره وجهه وجسد رجية شركة معناها جسد رجية على قضاء شركة إذا ماشي حكته معناها وجر رجية وعلى قضاء مرضى كرفنت أجهص مرية أو كرفنت هوستي إذا أجليوي شركة إذا مرضى حكته على قدم مركا كافورك والحكمة في الكافور وحوي لشدة التبرد تبريدي قبوشنتي صادرا إيوه تجفيف جسد الميت ميت شركة سنة وقللنا هيا wuxuu kaloo ka xifdinayaa baa leeyahay meedka doorsoonku inuu ku soo degdego midda kala carafna way ku sugan tahay oo dadka ku tukanaya iyo malaa'ikta soo xaadiraysa kulli meesha caraf ay u noqonaysaa kaafurka hadii lagu daro soomahan sidaas ay noqonaysaa waxa hadiiska ku sugan marka dadka saalixiinta ah horta waxa ku sugan in meedka la carfinayo la udgunayo ko istihbaab at-tibi wa khususan al-kafur waxa kale oo ku sugan xadiiska dadka wanaagsan in qofka tabarrug ahaan dharkooda la barakeysanayo gabadhu nabigu wuxuu maradiisa u siiyay waa inay barakeysato oo barakadii nabiga kaleey salaatu wasalaam jirkiisii wanaagsanaa oo ku jiri jiray ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku xifdiyo oo gabadhan ilaahay uga xifdiyo waa nabigu ugu dhajinay kaleey salaatu wasalaam u siiyay وفي روايه عن كسر أو 7 أو 7 دقائق وقال وحي النبي ووسي در رواية إبدأنا كبلا بميامنها مدقيال كذا يوم مواضع الوضوء ويسقات كميله يسا ومنها قبضة كمذا وإنه معضية قالت واحد وجعلنا رأسها وحانوية لني كي يلنا 3 قرون 6 قيس مركا ميدك مركي لدقايو هرت waxa la suneeyaa meel sare in meedka lagu dhaqo la suneeyaa oo sida sariir oo kala ah ama alwaax la dhisay oo kala hada meelaha meedadka lagu dhaqo alwaaxya dhisan baa ku diyaarsan haddii alwaax aysan sariir oo kale in meesha la dhigaa la raba qofka dhaqahaya iyo qofka u kaalmeynaya qof aan ahayn inuu soo galin baa la raba qofka meedka mas'uulka ka oo ama ilbihiisi uu yahay waxa dhinta ama waalidkii uu yahay asagu maamul ahaan waa u soo gali kara
عورة ميتك إلا أركنا مرة لما أقول حرام ولا ما أقول مرضى ميتك كل جس لجود ده يا مرضى هوست يدور روح قاسل كاهي كنا قاهي أمرك أنت الدلال كيسة حتى إنه اسكبرنا أنا هذا عورة يملاك اسكبرنا أنا هذا تعرف نفتي لا مرة بيها ماشي أذكر مركي لوجوس وقفك قاسل كاهي كواحد يسوق لي بيها اللوجود قيانا بيقبوا إنه مرة لكن قرمه بيها كلول إنه نقدر واحد الصناعة يا هدي ميتك وسق أما واحد كل جن أو أن لقف تشينكر إنه كل جن إلا بيها إلا كل ليما أما دول قبوية هدول قبوية أنا بيها ولا الديرنا هي لكن بيها قبو بسنة هدول كل لك أدو قبوية هي بيها ولا الديرنا هي هذا يرتام بأنك ما قال أنا نشوفه قف كستبيها وكل لا يستاسمه هذا ميتك يتأذى بما يتأذى به الحي قف كنا نروح كل بعض أصلا كل بعضنا ميتك بيقبو يسقف فرم سيدا كله ربناته أما تبادي أفكار إنسان كأوفر بيس بلا لا سو يجد كماله مكت أدو ساو لبسنا يسكر وكد ويسه أدو مركورا لبسنا إنسان كبيلا عاشوا ما أقوله وسيدا سوكلو أصلا الدنيا يا مركز سيدا سيالو الدلالة هي وجعلنا لها ثلاثة قرون أنت الشيء هيو ده قبل التمام بدن بيلها يسومها تمه هذه صيح الحرام ويعجز هذا قف الدمر يا أساس الله سمينا مركز عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وحلق وري قال وحير بينما وقت رجل واقف ويهي مدكي تاغن بعرفة تاغن إذ وقت قاسم وقع وحو كدعي ننكي عن راحلتي دابديسا يو كدعي فوقصته قورت أي كجبس ويقور جبس أو قال وحو يراوي فأوقصته سرك أي قورت كجبس فقال رسولك وحير صلى الله عليه وسلم يغسلوه دغا بماء بيكو دغا وسدر قبن كدغا وكفنوه ككفن في ثوبه مرديس ولا تحنطوه هأدقننا هعرفننا وايه ولا تخمروا رأسه مدحيسنا هأسترننا فإنه نن كان يبعث على صار الدون يوم القيامة قيامة مالك كذا ملبيا حال يهمدك لبيك سنهيه لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك صورنا هالشيء يسيبه كدعي اسوى عرفتها سركو كتشو مرك ساسوا waayahay ninkan waxa la magaciisa lama sheegin riwaayinka qaarba iska sugnaaday laakiin magaciisa lama sheegin على عبد الله بن عباس وحلق وري قال وحلو بينما وقت الرجل واقف يوم كتاب بعرفت إذ وقت وقف وقع وكذا عن راحلته فوقصته مركاسي قورت كجبس أو قال وحلو فوقصته قورت أيك جوز كجبسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلوه إن كذا بما بيكون دغ وسدر مركز ضي أو واحد وسق دين السولنا عرفنا الله هي إلا قفك محرم كعرف له ما أقلا قفك محرم كبرفون له ما أقلا وحكى له يقول حتى أنت عرف أنا ولا ما أقلا وكفنوا كفنا في ثوبه مرديس ولا تحنضوه هودغننا وكاس ودغي كله او كافوركي اسغا هذا لو ما اوغلا محرم قفك بر هذا عمل حرمده ولا تخمروا راسه ومدحيسنا هاسترننا الا قفك هذو قفك محرم يا عمل حرمده حد يعمره مدح انه مر صارت لما اوغلا سداس وي فإنه إن كان يبعث والله سو صار يوم القيامة ملبيا وفي رواية معك سنة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه هذو قفك الدمر يهنا وجهيدا إلا أسطرة يا لبض على على لبض قعنود إلا أسطرة من الله ما أقلا قلنا في السنة لو ما قلين كرم وجهنا لقما أسطرة الدنيا هنا مدح الله ما أسطرة كرم ولا تخمروا وجهي سنة مركز أسطرين ولا رأسه مدح أسطرين قال وحير رحمه الله تعالى الوقص كسر العنق معناه وحوي فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا تمحى لقوضا معناه على هيئة التي مات عليها أي كسب حيا ليكون ذلك علامة سوق هذا وحجة ودلالة على فضيلة سوق هذا فضيلة سوق هذا نين كان سيداس النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث كما على قادنا يا بالي waxa ku sugan horta qofka markuu muhrim iyo qaabka loo dhaqayo iyo in dadka si kala siisa loo dhaqayo in madaxa loo astureyn oo markuu noolaa oo hadda muhrimku iyo madaxa inuu asturto lama ogol Soomaan sidiisa in lagu aasayo loo waxaynayo asoo xataa madaxa u banaayo la aasayo mugti waxa kale oo ku sugan xadiiska dawaamu talbiyati fil ihraam qofku amal ba haduu xirto in talbiyada la wada hayo fihi waxa ku sugan tanbiih wa tahriid ala liqaa illahi ta'ala bi halatin تناسب العبودية وحكلا كسوغان إن قفك لغو بورينهايو إلهي إنو كلا كلمو حالات الدونما وقلنتا حالات دي مركا كسوغان يهي إنو كلا كلمو وايه الحديث صاحب عن معدية قبل اللي روح الغوري رضي الله تعالى عنها قالت نيتري نهينا وحنا لك الرهيب عن اتباع الجنائز الجنازوين كأنا رعنا ولم يعزم علينا مننا لك آمين
نهينا وحنا لكرر عن اتباع الجنائز الجنازوين كإنا راعنا ولم يعزم علينا أمنا نلقو أتكين أي ولم يؤكد علينا في المعنى من اتباع الجنائز على كل دمركم مركة جنازة دينا راعا ولو قلية هي وهي هلا قرر معناها اسكتشو قالي لكن وإذا كحرام لما أرن مركز سيداس ويا قبله مركز ولو قلية هذا لكن وحنا لو قلين واحد دنبي إلى السمايان لما أقرأ إني أوياني إني أرداني إني وحيالا ومركز أي سمايان هذا قفله قلية ما شرط رجع دمر تاس لكن سيدا كلا إني قبر التجان قبرها التجان وصوص سيارتان ومركز ميت كي راعان والله قلية وين حديث كان الله قادر هياو ويهي قصص عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحلق ولي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك صوبا يري أسرعوا ضدوا للدقدق بالجنازة الجنازة فإن تكون صالحة هديت يمد وناسا فخير خير با تقدمونها أهر مرنسين إليه خيرك وإن تكون هدايا هاتو مركا وإن تكون كان هذا النون كذا حدفا وإن تكون هدايا هاتو سوى ذلك متكاس وحكا الصهري أو قفا في عنين هدايا نغطنا فشر با تضعونه كده جليسي عن رقابكم سركين مركا الجنازة مرول بإن للدجية أيال الربا لأن المقصود على الإسراع بالميت إلا الدجية الربا المراد بالإسراع هنا الإسراع بالميت كما قلنا ميت إلا الدجية لولا تشيل إما أنا نعش إلا الدجية مرة وميت إلا الدجية لولا تشيل حدو قفي عن هي قبر جيسا قفي عن إن ما أنت رميلها الوهاي خير كاسة لقينا هي روضة من رياض الجنة وصعدها قف إلهي وقبر جيسا أقول نعميينا الدنيا أباهن ماي إله يا ميل هبلي يقول علينا ما أرنا إله وضع يقصوا الضيب لي قف قبر يصلون نعمة تعسوا سداس حدو قف حيا هينا حدا عليس كيسي حمانتي سي اسكد دتشيه اسكد دتشيه وي وعكس جنبا لإكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدموه من الأعمال الصالحات تذكرون ونكسم إلا دتشين هي ساس معنا ضد قفل بلد دتشينها لكن حديث قفل ولا دتشين لكن ضد قف وناكسن وها جنازة دي سأل الله ورمرنا يا ده وحليري إمام أحمد موسى إن موعدنا يوم الجنازة ضد بحسد كوها مركز سوير مالنتا عند انتا بلنا أهوي قفك خير لا مرك أودنتو أيا جنازة دي يا أمدك السوقيب جلس يا خيرك يا واحد صعد والله يا وهي يا وي جنازة سلسكو عريدين هي حلقي أو إمام مالك يحل جودي باويل أرضي أها كتابها اللي يسنجر ود أنت مركب جنازة دي سي أيا واحد الأركي أئمة الإسلام يوم مضي يوم اسكو عريرين إس حتى ننكي والجها ومشى وضحنا كها وضحنا إياه جنازة بحنشرين ويابي نين كان سيد علماء وويناد أهل العلم قال محمد بن المنكدر رجع اسكو عريرين هاي يسوع قبضة أن راعنا أن كورن والجي واسكداي إذن كل صلاة بحية أيوه saas ay iyagu salaadii ku dujiyeen marka wiilku wuxuu ah wiil daalib ilm ah oo masaakiin ah oo baahi diinta ku baranaya ilaahay khayrkaas uu ku amal bariyay marka sidaas way dadka culimada dhaxalka nabiga kaleey salaatu wasalaam kuwa yaqaan iyo dhaxalka nabiga kuwa baranayaba isku sibaan u darajeynayaa buu ilaahay isku sibaan loo darajeynaa marka saas marka ninkaasna sidaas way وايه خير أيها فيسرعوا بالجنازة للدقدقة فإنها أيضا إن تكون صالحة نضيتها فخير ما تقدمونها إليه أهر منيس وإن تكون سوى ذلك فشر سربا تضعونه عن رقابكم كدجنيس وعن سبنا بن جند من كليرا وحلق وري قال إنه يري صليت وحن كذا وراء النبي جميع جيسا وحن كنت كذلك كيسان كنت كذا على امرأة هوينة كركت هوينته ماتت لمطي في نفاسها ديق دلمضى كل مطي فقام النبي وحو استاغ وسطها دحديد استاغ حديث كان marka waxa ku sugan horta gabadhu hadii iyadoo nifaas gabadha umul raacatay waxay u dhimatay dhiig dhalmada fooshay ku dhima ama dhiig ka damay u dhimatay haduu qofka dhintay haweeney yahay meesha qofka imaamku uu istaagayo way marka imaamku qofka haduu yahay haweeney dhintay dhex bartankeeda la istaagaysa meelaha sinaheeda ayuu isku aadinaya dhexdeeda sinaheeda isku aadinaya haduu qofka dhintay niyahana madaxiisa inuu istaaga la sunnaya hadduu dumar yar waa kana nabiga kaleey salaatu wasalaam dhaxaysta ayadoo gabadha nifaas bay qabtay salaada kuma banaana la oran maayo ayadana waa tan ugu sugan
marka saas fiican sabana tarjumada waxa laga wariyay qaal wuxuu sallaytu waraa nabiyan ku tukaday ala imraatin haweenay baan kula tukaday haweento maanta dhimatay fi nifaasiya faqaama nabigu tukaday faqaama nabigu wasdaha tukaday mid gabadhu haday haweenaydu umada kale ay gabadhu u dhimato dhiiga dhalmada ay u dhimato ama foosha ay sabato waa shahiid min shuhadaa ila aakhirati way kamid shuhadada aakhira ay ku jirtaa marba haday sidaas u dhimato saas waa gabadhaasna nabigu saas ugu tukaday الحديث العاشر عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس وحا لغا وري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ الرسول وحو كبر نقد من السالقه مد قيلس عند المصيبه والحالقه مد تنت اسك خيته عند المصيبه والشاقه مد مريها اسك جحجحده عند المصيبه قال المصنف رحمه الله تعالى السالقه التي مد وي ترفع صوتها صوت كده كور قاده عند المصيبه markay musiiba ku dhacdo mid صوت kor qaata way برئ الرسول الله صلى الله عليه وسلم برئ وحو كبر نقد من السالقة مد صوتك كرو قادة مد قيلس عند المصيبة والحالقة مد تنت اسكحيرت عند المصيبة والشاقة مد مرض اسكجحجاد عند المصيبة قال المصنف رحمه الله تعالى السالقة التي ترفع صوتها صوت كذا مد كرو قادة عند المصيبة النبي هذا وكبر النقد هي النبي وكبر النقد ذنوبته بلايده waxa ku sugan baa looga barin noqday saas waa macnaha waxa weeye lama ogolaway maxay la qofkani ilaahay qadihiisa iyo xukunkiisa ayuu ka soo horjeedaa oo uu ku mudaharaadsan yahay ka qaylinaya lama ogola marka ilaahay xukunkiisa la soo horjeeso laga soo horjeeso waan Aisha radhiyallahu ta'ala anha waxa laga wariyay qaalat inay tiri lamma istakan nabiyyu nabigu markuu jiraday ayaa dakara wuxuu ka sheekeeyay bacdu nisaa'i xaasaskiisa qayb kamid ah waxay ka sheekeeyeen kaniisadaasoo ra'at ay aragtay bacdu nisaa'asiha bi ardil habashata ay ka aragtay كنيسة يقال لها لو يراهد مارية لا يراهد كنيسة ماريا لا يراهد وكانت وحينا أهيد أم سلمة وأم حبيبة أتيا إن تجان أرض الحبشة فذكرتها مركزي واحد قبليه كشكيين من حسنها كنيسة قروح ذي وتصاويرها وتصاوير مصورة فيها كنيسة كل حسنها فرفع نبي رأسه ومدعو سكر وقال وحيد أولئك كواس مصور هذا يوحى سمينها يا إذا مات فيهم دحدود هدول انت الرجل نينكي الصالح وناكسنا بنوا على قبري سي مسجدا كدغ جيرين ميل ku sujuudaa ma ka sameeysan jireen thumma sawwaru warkay suuran jireen fi qabriga dhaxisa tilka mid aatiida aswar suurooyinka ulaa'ika kuwaas sharaarul khalqi makhluuqa kuwa ugu sharta badan way cinda Allah ilaahay agtiis macnaha waxa weeye gabdhahan kaniisad bay soo arkeen iyo qabri ku dhex yaala iyo wixii ay ku sameeyeen dadkaas gaalada nabigu saas uga jawaabay kaleey salaatu wasalaam waxaan marka lama ogola عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحلق وري قالت إن يتري لما اشتكى النبي مركو حنون صدي ذكر بعض نسائه النبي حاسس كيس قريب كم ذبح كشيء وحس كنيسة داسور رأت هي بعض النساء سها كنيسة دا ياركتي بعض بأرض الحبشة يكون ساركين كنيسة يقال لها مارية الليرة وكانت أم سلمة وحي هذه أم حبيبتها أتيا إن تجان أرض الحبشة فذكرتها مركزي وحي كشيء من حسنها وروح ذي وتصاوير مصور فيها كنيسة رحلات فرفع رسولك رأسه ومدعو سكر وقال فقال وحيري أولئك كواس إذا مات فيهم دحدود الرجل من هدول انت الصالح صوبا بنوا على قبري وحي كدس جيرين مسجدا مكان السجود وقبرك كركي سيب كنت كنجرين لما انا اوغلاتها صد حرام ثم صوروا فيه دحيسه الكسور سورين كاسي كسبين جيرين أولئك كواس شرار الخلق كوا ugu sharta badan way عند الله ilaahay agtiis niman baa marka ahadiis kan iyo ahadiis lamida intay soo qaateen ayay waxay u soo bedeleen oo u soo rareen gaaladaas laga hadlahayo oo haday rabaan qabriga caabudahay haday rabaan sanamyaalka ay ka dhex sameeyeen ku dhex caabudahay haday rabaan qabriga u sujuudahay haday rabaan ku dul sujuudahay macnahan xadiiskan man inta soo lageeyeen ayay waxay ka dhigeen u soo qaateen dadka muslimiinta qabuuraha ziyaaranaya oo qabuurahaas inay u soo duceeyaan oo Ilaahay u naxariisto yiraahdaan oo ay soo ziyaartaan dadka sameeynaya hay kuwaana sidii oo kala hayra حاجات سيدو قف قبر عابد ولغين ما نار قف شيخ عابد ما نار waxaas dadka sadhiigooda lagu banaysanaya ujeed kale laga leeyahay lamaan waana la banayst inta badnayd waa la leeyahay inta kale raan isdaba dhigo wax la yaab loo marka war qabri nabiga kaleey salaatu wasalaam in la siyaarto qofna ku diiday aadaabtii sharciga ahayd oo qabuuraha loo siyaaran jiray hadaa sameeyay qof qabri caabudana ma jiro قد مرك حديث وعن كسر دليل قفكوح صار كأنه كحكاية فيه دليل أيضا على وجوه البيان عند حكاية ما يقتضي وحي الشرع خلاف سنقفكم مركو كل شيء وهذا عدينا سيد النبي وعد عليه الصلاة والسلام فيه دليل أيضا على تحريم التعظيم بما لا يحل فعله سيدك لو عن كسر حديث
qofka inaan lagu weyneyn karin oo lagu tacdiimin karin wax sharciga islaamku soo galay qofkan qof saalix oo fiican buu ahaa laakiin maxay sameeyeen masawiro iyo balaayo iyo in loo sujuudiyo iyo sujuud iyo waxaan ilaahayba banayn waxyaabahaas oo dhan baa ku sugan wey عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحلق وري قالت إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الردي سوى كوير الذي مرض كاسو لم يقم نمجو سكسوك منه حجز لعن الله إلهي نحرسها كفجي اليهود نمك يهود ليران والنصارى نصارى إلهي نحرسها كفجي اتخذوا قبور أنبيائهم أنبياء ذو قبريال كذا وحكدكتين مساجد ميل وسجوده مكان السجود يالبي كدكتين او ميلي السجودان او قبلي بكدكتين اما وابا كدل السجود اما وابا السجود هي لعن الله إلهي سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مرض كاسو لم يقوم سكسو يستاغ لعن الله إلهي الله عين نحرسك في اليهود من يهود ليرا والنصارى اتخذوا وحي يشين قبور انبيائهم بمساجد كيشين قالت وحي تري ولولا ذلك هدوس كاستري لهين لابرز قبره سوماهن نبي قبره سام قالها غير انه لكن انه نبي خشيه وحو كبغ ان يتخذ مسجدا مساجد الا غدغتو لو سجوده دي قبره الا عابد الله ما اوغلا قف نول الا عابدنا لما اوغلا سنم الا عابدنا لما اوغلا الهي قف كسار الا عابدنا لما اوغلا لكن ما لا عابدي مسوا لا صيام ها marka dad reey qofkii qabri ziyaartaba uu caabudahay taas waxa weeye dadkaas al raab muslimiinta waa iga fakar duwan yihiin marka inay noolaadaan xaq oo leh in la laayo weeye macnuhu saas noqonaya saas waay marka saas marka qabriga in loo ducinda qabri in qabriga agtiisa lagu ducaysto zalafku falam yazali salafu wal khalafu yaf'aluna inay saas sameeyaan kabiisa suul wayatawassaluna ila allah ta'ala bid-du'a hunak qabriga agtiisa inay inta ku ducaystaan ilaahay ku baryaan salafku maba ka suuli jiray masaas ay aan jireen ama nabiga qabrigiisa haato ama mid kale haada nabiga kaleey salaatu wasalaam haada mid kale waayay marka qabraan biyado nimankaas masaajid ka dhigteen ilaahay nacalada ku rido yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam qabriga de meel lagu sujuudo in laga dhigto ama meel lagu dul tukado in laga dhigto lama ogala فيه دليل على امتناع اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا فلا يجوز ان يصلى على قبر نبي قبري ان لو دل تكلم لما اوغلا بعد دفنه هي قبري كلامنا قف لو غلي لما ارك waxay meelahan oo kale kugu bushin karaan mararka qaar meelaha qaar ama Soomaaliya ama wadamada kale waxa laga helaa qabri masaajidkan oo kale qabri ku dhex yaala laga helaa masaajidkii waa halkan qabri baa geeska uga yaala ma lagu tukan karaa mise lagu ma tukan karo maxaa lagu tukan waay halkaas lagu tukanaa qabrigu halkaas ku yaala ha qabrigu geeska ku yaala ee waxa la diidaa oo aan fiicnayn qiblada xaggeeda qabriga in masaajidka laga mariyo oo qabriga xaggiisa loo tukado hasan fiicnayn laakiin in qabriga halkan ku yaala dadka muslimiinta halkan ku tukanayaan taas waxa dhib ku sugan ha hadii ay dhacdo oo qabriga halkan ku yaala qofku xaggiisa u tukado ma asagu caabudahay ma asagu u tukanahay meel kale uu ku tukado haduu waayo ama qabrigiiba uu qiblada xaggeeda ka seexiga qabriga oo dad ay sida u sameeyeen lagu ma tukan karo masaajidka meel leey ma waxa soo wax ka jira lama arko لعن الله اليهود إلهي نحرس كفغي اتخذوا قبور أنبيائهم بما كسميستان مساجدا قالت عائشة وحتى ولولا ذلك أساس تيسجر الهين لا أبرز قبره النبي قبره سوى مغلها صلى الله عليه وسلم ولولا التحذير من اتخاذ القبور مساجدا لا أبرز قبره أي ظهر للناس ولكن تركوا ذلك خشية ما ذكر أرنتها سيدراد لغتك هاي الأساس كسر صعد مرك وعن عبد الله بن مسعود مياه وعن عائشة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى قوري أنه سوى قال صحابي قاسوا إنه يري ليس ميا عن النبي وحكور يده صلى الله عليه وسلم أنه رسولك قال إنه يري ليس منا أنك نقامدها أي ليس في هدينا وطريقتنا ليس منا أنك نقامدها من ضرب الخدود دائما كقفك إسكا قراعة مركب مصيبة ضرعت من ضرب الخدود عند المصيبة دائما كإسكا قراعة بلايا نقول عضايا وباب ضدنا ومهر السلاح وشق الجيوب التابيال كان اسكد اللاعيه ودعا كل واقع بدعوى الجاهليه دعوده ومحيتها يا ويلا هلاقيغيو واجبلا مدكي ماركه جبلكيغا هايو وكفا امام بينا ودلدل اساسو كلو عن عبد الله بن مسعود وعلى قوري عن النبي وحكور صلى الله عليه وسلم قال النبي سبحانه يري ليس منا انك نغمدها معنى ليس في طريقتنا وهدينا كما ليس من اهل سنتنا ولا من المهتدين بهدينا كما مدها diintu ka baxay maahan man daraba al-hudud qofka daamanka iska garaaca oo markaas waxa weeye macnaha
قضي إلهي كحن وشغل جيوب جيب كان اسكد اللاعية أو مرضي اسكد جوجوية أما جيب كمان ملك لكد اللاعية والدعاء كنا وقبل دعوة الجاهلية جاهلية وما قبل الإسلام كل فعل خالف فعل الإسلام نويا وكل فعل فخالف فعل الإسلام وجاهلية marka lama ogolo way macna waxa laga wadaana macnaha ficil isla waxa la wala wal murad huna ma kana taf'aluhu jahiliyatu inda ma kana taf'aluhu inda mawtil mayit qofku dhinta markuu dhinta agtiis ay sawd karu qaajin soo dhanjir waa jabala ninkay boortayda haayo waa sanada kan ku tiirsanayo waa sayidkaygiyo waa waxa soo kale waa murmilu niswaan dumarka ninkii garoobeeyo oo dumar oo dhan garoob noqdeeno balaayada nagu dhacday saas kale qofku inuu yiraahdo waxaase shariicada islaamka lagu ma ogolo weeye hal rabaa waxa weeye in qofku markay waxa yaalaan dhacaan uu sabral rabo ana bi hurayra waxa laga wariyay qaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam man shahida qofku waxa diray al janaazata meedka dhintay janaazada waa meedkii baa laga rabaa hatta yusalli miya hatta yusalla alayha ila looga tukado falaw waxa usugnaaday qiraadun nasiib baa usugnaaday oo dheef iyo nasiib ومن شهد قفك واحد جنازته حتى تدفن الى لغا سنه فله قيراطان لما نصيب اسناد قيل وحا لي وما القيراطان maxay tahay qiraadaan ya rasuul qaal nabi wuxuu yiri mithlu aljabalayn laba buurood oo kala weeyay alcadiimin weyne oo alcadiimin oo weyn wala muslim waxa usugnaatay asqaruhuma labadaas buurood mid ka yarna mithlu uhud buurta uhud buu leeyahay ajarka bil fiir weynkiis mithlu uhud buu leeyahay Allahu akbar marka waxa weey meed haduu dhinto ha fududaysan ina ka qayb gashay tabartaada hadaa awoodid khayrka wax ka soo qaado adigu waa dhimanaysaa ana bi hurayra radiyallahu ta'ala anhu xalqa wali qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam man shahida qofkii waxa diray al janaazata hatta yusalla alayha falahu qiraadu ma usnaada nasiib weyn ba usnaada xad weyn ومن شهد قفك waxa diray hatta tudfana falahu qiraadaan laba nasiib ba usnaada qila waxa li wama al qiraadaan qala nabigu wuxuu yiri mithlu al jabalayn laba buurood oo kala weey jabalaynku al cadiimayn oo weyn wala muslim waxa usnaata asqaruhuma mithlu jabal uhud marka waxa laga wadaa horta qiraadka ayaa laba macno leh nabigu hadda tan saas uu ku fasiray waxaana saan loogu weydiiyo leeyahay qiraadku wuxuu yahay waxa jirtay waxa yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri are ayaan waagi hore oo yaraa u ilaalin jiray nin reer makaada waxaana ugu ilaalin jiray ala qaraarida lacagtii qaraarida loo oran jiray marka lacag yar oo bay ahayd marka maadaama qiraadku kaasna lagu fasiray macna kalena yeelan kala leeyahay makiiba laga wadaa waxa sirka meel loo jeeda markaas yiri nabigu war waxa laga wadaa waa laba buurood ajar leeg way wax weyn oo mid yarba ay uxud leegta uxud inta leegta weynka ka baad laakiin waxa leeyahay maqsuudul hadiith waxa weey anna man salla ala janaasatin qofki janaaso ku tukada oo wax ka soo aasa waxa u sugnaaday kaana lahu miqdaarun cadiimun min ath-thawaabi wal ajr qofku haduu janaasada wax uga tukada kaliya ajar weyn buu leeyahay فإن تبعها بعد أن صلى عليها هدور عمرك مركي لقيت كذا بعدي إلى لقى آسو كان له وحا أسقنادي حظان عظيمان لما نصيب هو وين والله برضه قال له كتاب الزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد